galab wanaagsan saaxiibyada meel kastoo aad joogtaan u diyaar garoobo wararkeena galabnimo inaad kala socotaan janaaladina YouTube-ka sirta wararka iyo calanka news waana galabnimo talaada 11 May 2021 wararkeena galabnimo qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka noqon doona dowladda Soomaaliya war lama filaan ka soo saartay talaabadii Kenya ay ku joojisay duulimaadyada go'doonkan ay ku guuleysay Soomaaliya hadaba warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa idin soo koobi doona waxa kale oo qayb ka noqon doona go'aankii Kenya ee dhammaan duulimaadyada ay ku joojisay warqadaas goorta ay soo baxday iyo sidoo kale dalalka bariga Afrika oo ina go'aan ka gaarayo codsi Soomaaliya ay dirsatay waa maxay codsiga Soomaaliya ay dirsatay dalalka bariga Afrika ay go'aan ka gaarayaan wararkii ugu dambeeyay xaaladda Qudus Israa'iil oo iskaga baxday masjidkii barakeysnaa ee Al-Aqsa iyo xaaladii ugu dambeeyay ee Qudusna waan soo qaadan doonaa saaxiibayaal Muqdisho iyo dhaqaaqii ciidan oo laga soo sheegayo farmaajo waxa uu aaday wadankaasi Uganda dhammaan qodobadaasi kuba kale ayaan soo qaadan doonaa qaybka noqo saaxiibadena ku xiran channelkeena subscribe noo dhagam bareelkana taabo si kugu soo dhaxaan macluumaadka warbixinada gaarka ee halkan aan ku baahino galab wanaagsan soo dhawaada aan ku bilaabay dowladda Soomaaliya ayaa goor dhaweed war degdeg ah ka soo saartay go'aanka ama talaabada dowladda Kenya ee go'doonka ku guuleysay Soomaaliya inay ku joojisay dhammaan duulimaadyada dowladda federaalka Soomaaliya ka hadashay go'aankii dowladda Kenya ay ku joojisay duulimaadyada tagi jiray Kenya iyo kuwa Soomaaliya ka imaan jiray intaba si ayaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Duraan Ahmed Faarax oo ka jawaabaya go'aankan ayaa tilmaamay mid aan si rasmi ah u ahayn maadaama uu sheegay in dowladda Kenya aysan warqadaasi soo gaarsiin dowladda federaalka uusan ahayn war rasmi ah sida uu yiri wasiir Duraan ayaa sheegay in go'aanka Kenya ay ku joojisay duulimaadyada Soomaaliya iyo kan Kenya kaliya ay u arkaan warbaahinta ay ka arkeen warbaahinta oo kaliya laakiin ka dowlad ahaan aysan jirin qoraal rasmi ah la soo gaarsiin taasi mar kale ay madmadow soo dhaxgelisay xiriirka dhanka diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya oo labada dal toddobaadkan ay sheegeen in xiriirkooda dib u soo celiyeen waxa uu ku sifeeyay talaabada Kenya mid la yaab leh xilli maalmo kooban horteeda la soo celiyay xiisada waa xiriirka dhanka diblomaasiyadda oo la xaliyay xiisadii arintaasi ka dhalatay si buuxda ayuu yiri labada dal daris wanaag iyo nolol ayaa ka dhaxaysa xiriirkooduna uu wanaagsan yahay dowladda federaalka ayaa bilowday wada tashiyo kala duwan oo ku saabsan go'aanka Kenya kaas oo jawaab ku haboon dowladdu ay doonayso in si rasmi ah kaga bixiso inkastoo wasiir Duraan uu sheegay in warqadda ay ku arkeen baraha bulshada iyo warbaahinta laakiin ilaa hadda ka dowlad ahaan aysan jirin warqad rasmi ah la soo gaarsiyo lagu joojinayo duulimaadyada hadalkan ayaa imaanaya xilli dowladda Kenya ay qaaday talaabo u muuqata mid argudasho kadib markii dhawaan dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in hakad ay gelisay keenista qaadka nooca meerooga laga keeno gudaha wadankaasi hay'adda duulista hawada dalkaasi Kenya ayaa sheegtay in laakiin dhammaan duulimaadyada diyaaradaha ka imaada Soomaaliya ama kuwa tagaya marka laga reebo kuwa gargaarka iyo diyaaradaha gargaarka iyo kuwa la shaqeeya hay'adda qaramada midoobay sidoo kale hay'adda ayaa sheegtay in go'aankan uu dhaqan gali doono laga bilaabo maanta oo taariikhda 11 bisha May uu socon doono ilaa bisha soo socota ee Agoosto 2021 tani markii uu soo baxay go'aankan waxa isla markiiba saameyn xooggan ku yeeshay boqolaal shacab oo Soomaaliyeed oo doonayay in Kenya ay ka soo tagaan ay Muqdisho yimaadaan iyo kuwa Muqdisho ku xanibnaa oo doonayay inay aadaan wadankaasi Kenya wararka ayaa sheegay in talaabadan ay ka dambeysay sababo la xiriira qaadka dowladda Soomaaliya hakisay ka imaan jiray Kenya kaas oo Kenya la sheegay talaabadaas ay ka xanaaqday ayadoo la xaliyay xiisada dhanka diblomaasiyadda ayaa hasay shaarintan u muuqanaysa mid si u laba kacleysay xogo isra qaas oo helay channelkan ayaa xaqiijinaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay shariixa hawada Soomaaliya ay ka celisay diyaarad sadeeqaad taas oo ka timid gudaha wadankaasi Kenya diyaaradan ayaa la sheegay inay ku soo wajahneeday magaalada Muqdisho una ururneeda ganacsato Soomaaliyeed celinta diyaaradaas ayaa la sheegay inay ka dhalatay xanaaq dowladda Kenya ay ka xanaaqday dowladda Kenya ayaa shalay la sheegay inay qasaartay lacago malaayiin dollar ay doonayso inay ka faa'iido qaadka Soomaaliya u soo waday laakiin dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in si lama filaan ah diyaaradu ku amartay inay ka noqoto hawada Soomaaliya sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay qaado talaabo ay ruqsad kala noqotay diyaaradii qaadka ka soo qaaday gudaha wadankaasi Kenya ay ku soo wajahneeday Soomaaliya talaabadaas ayaa la sheegay dowladda Kenya ay ka xanaaqday waana sababta loo arkay in go'aankan Kenya ay ku qaadatay ay ku joojisay dhammaan duulimaadyada gudaha iyo
kan banaanka ka imaanayay khasaare xoog leh ayaa la sheegay inuu soo gaaray ganacsatada wadankaasi Kenya kadib markii diyaaradda qaadka uu siday laga celiyay hawada Soomaaliya xiisada diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya mar kale iyo cirka isku soo sharaartay saaxiibayaal dhinaca kale dalalka bariga Afrika ayaa ina go'aan ka gaaraya codsi ay u soo gudbisay Soomaaliya wadamada ku bohoobay ururka la yiraahdo CAB ama bariga Afrika gaar ahaan qaaradda Afrika ayaa go'aan ka gaaraysa codsi la xiriira ku biiritaanka ururkaas oo dawladda Soomaaliya ay dalbatay xogayaha ururkan lagu magacaabo Dr. Peter Muke ayaa shaaca ka qaaday inay bilaabeen howlihii hordhaca ah ee ku diyaarinayeen sidii Soomaaliya ururkan ugu soo biiri lahayd sidoo kale wuxuu inta ku daray in Soomaaliya ay soo gudbisay ay soo gudbiyeen shuruudihii loogu baahnaa inay buuxiyaan si ay kaga mid noqdaan wadamada ku bohoobay ururka bariga Afrika ka jira arintan waxay ahayd codsi ay arintan Soomaaliya ay soo dirsatay bilowgii horeba waxaan eegaynaa shuruudaha Soomaaliya loo baahnaa soo buuxisay waxaan xiriirka ugu horeeyay ee la sameyn doona Soomaaliya si ay qayb ka noqoto iyo ururkan bariga Afrika ka jira waxa kale oo inta uu raacay waxaan bilaabi doonaa arintan haatan waxaan rajaynaynaa in haddii hawshan ay bilaabato in lagu guuleysto ururkan ayaa ah ururada waaweyn ee ka jira bariga Afrika waxaana ku midaysan dalalka Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania oo ururkan ay ku jiraan Soomaaliya waxay doonaysaa inay ka muuqato ururada caalamiga ah madaxweyne Farmaajo waxa uu aaday wadankaasi Uganda shirkadiisa ayaan soo koobi doonaa markan madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saaki u ambabaxay wadankaasi Uganda waxaana safarkiisa la sheegay inuu ku weyninayo marwada koowaad dalka iyo xubno wasiirada mas'uuliyiin ka tirsan kuwa dawladda ayaa ka sagootiyay garoonka diyaaradaha aadan cabdi Farmaajo ayaa ka qayb galaya xafladda caleemasaarka madaxweynaha dib loo doortay wadankaas Uganda Yoweri Museveni kadib caleemasaarkiisa lagu cazumay safarka madaxweyne Farmaajo uu ku ambabaxay waxa ku weynanaya wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga horumarinta dhaqaalaha Jamaal Maxamed Xasan iyo marwada koowaad dalka Marwo Zainab Cabdi Macalin iyo la taliyaha madaxweynaha iyo saraakiil kale safarkiisa qaybka sidoo kale madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday ayaa intuu ku sugay Kampala wuxuu ka qayb gali doonaa kulamo duceedyo looga hadlayo marxaladda Uganda iyo waliba mas'uuliyiinta kale ee caleemasaarka ka qayb galaya madaxda caalamka ka imaanaya gaar ahaan Afrika oo 22 bisha May ku beegan bishii Janaayo ee sanadkii 2021 ayaa markii Museveni uu lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashada dalkaasi ka dhacday walow natiijada ay qaadaceen hogaamiyaha mucaaradka si kastaba madaxweyne Museveni oo talaabada Uganda qaab bajaraha u sii qaban kara tan iyo sanadkii 1986 uu hayay madaxweyne Museveni ayaa la doortay sanadkii 1986 waxaana xilkan uu hayaa in ku dhow ilaa 35 sano asagoo codbixinta doorashada tii ugu dambeysay la sheegay ee 14 Janaayo inuu ku shubtay inkastoo mucaaradku ay diideen Museveni wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha Afrika ee waqtiga dheer xafiiska jooga wagaagga madaxweynaha shirkiisa markaan ka soo tagno xaaladda Muqdisho way degan tahay mucaaradka waxay wadaan dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo caasimadu ay ka wadaan sidoo kale waxa soo baxay abaabulka ciidan dhaqdhaqaaqyada mucaaradkan wararkina caawiyaad ku daawo doontaan saaxiibayaal oo macluumaadyo sir ah iyo xogo ayaan ka badigoobi doonaa wagaaga ugu dambeyn xiisada Qudus iyo Israa'iil oo markan doonaysa in wili xasuuq ay ka geysato xilli ay soo baxeen Israa'iil ay ka baxday masjidka Al-Aqsa askarta Israa'iil ayaa la sheegay inay dib kaga gurteen masjidka Al-Aqsa iyo waliba magaalada barakeysan ee Qudus oo maalmo ka hor rabshado ay ka socdeen laguna dhaawacay boqolaal shacab reer Falastiin iyo ciidamada Yahuuda ayaa la sheegay in wili ay wadaan gumaadka iyo duqeymaha ay ku wadaan marinka Gaza bixitaankooda ayaa ku soo beegmaya kadib markii kooxda muqaawamada islaamiyiinta ay Falastiin ee Hamasba ay bilaabeen duqeymo xoogan ay ku garaacayeen gudaha wadankaasi waa gudaha Israa'iil waqtiyo badan ayay ciidamadu sheegtay in ciidamadu ku qaatay inay ka baxaan masjidka Al-Aqsa iyo waliba deegaanada kale ee muhiimka ah dhulka barakeysan kadib markii la sheegay in ciidamada Yahuudu ay go'doon xoogan ay wajaheen ciidanka Israa'iil waxa kale oo la sheegay in ay hadda ay bilaabeen duqeymo xoogan oo ay ka fulinayaan dhanka marinka Gaza iyo waliba sidoo kale magaalooyinka barakeysan hadalka ka soo baxay militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay inuu ku soo beegmayo xilli in ka badan 130 goobood oo ku yaala deegaanada Yahuudu ay maamulaan la sheegay in lagu dhuftay
dhowr gantaal oo ay rideen militariga Xamaas iyo sidoo kale ururada kale ee jihaadiinta ee ka jira wadankaasi hase yeeshee duqeymahan badankood ayaa lala beegsaday goobo shacab ah waxaana kuwa ugu badan ay ku dhaceen goobada shacab ah ay joogaan sida dadka ku sugan Gaza ay soo sheegeen waa duqeymaha Israa'iil ilaa 100 qof oo shacabka reer Falastiin ayaa la sheegay in lagu dilay duqeymihii ugu dambeeyay Israa'iil ay bilowday tani ayaa ka dambeysay kadib markii duqeyntii Isniinta Xamaas ayna duqeyn Isniinta ay bilaabeen 24 gantaal ayaa la sheegay in Falastiiniintu ay ku rideen gudaha Israa'iil warbaahinta reer Falastiin ayaa waxay sheegeen in ciidanka Israa'iil ay qaadeen ilaa 130 weerar oo 40 kamid ah laga fuliyay bariga masaajidka barakeysan iyo waliba sidoo kale duqeymaan ayaa waxay dhaceen arurnimadii hore saako talaadaha iyo shalay oo Isniina wadamada caalamka qarkood ayaa ku baaqayay in la joojiyo xasilooni darrida ka jirta halka ka aloosan Israa'iil Falastiin u dhaxaysa Mareykanka midowga Yurub Britain ayaa waxa ay ku baaqeen in xiisadan la joojiyo xiisadan ayaa ka sii daraysa habeennimadii Isniinta iyo xiisadan ka dartay markii Falastiiniintu ay gantaalay ku weerareen qayb ka mid ah Israa'iil sa gantaaladan ka jawaabayso waxa la sheegay in diyaaradaha ay soo kicisay oo duqeymo xoog leh ay ka geystay dhulka barakeysan ee Al-Aqsa iyo waliba xindaabka masaajidka wararkan ayaa ugu weynaa wararkii galabnimo saaxiibo wanaagsan